ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgalla ka dhan ah kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen deegaanada u dhaxeeya gobolada Shabeellada Dhexe iyo waliba Galgaduud guutada 26aad ee Cali bin Abi Talib ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay howlgalla ka dhan ah kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen deegaanada Cali Guudle iyo sidoo kale Cali Gurey oo u dhaxeeya Shabeellada Dhexe iyo waliba Galgaduud deegaanadan oo muddo fara badan ururka al-shabaab ay gacanta ku hayeen ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 26aad Cali bin Abi Talib waxa uu suurta gashay inay ka saaraan halkaasi isla markaana ay ka hortagaan qaraxyo ururka al-shabaab ay ku aaseen inta u dhaxaysa deegaanada Cali Guudle iyo sidoo kale Cali Gurey ee u dhaxaysa gobolada Shabeellada Dhexe iyo waliba Galgaduud ururka al-shabaab ayaa mar far badan miilooyin ku aasa halkaasi wadadana inta badan adeegsan dadka shacabka iyo waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saacadii la soo dhaafay ayaa la soo warinayay in halkaasi ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal markaasi ka dhan ah kooxda al-shabaab oo muddooyinka ugu dambeeyay halkaasi ku dhumaalaysanayay ma jiraan wax iska horimaad ah oo dhex maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale maleeshiyadka kooxda al-shabaab waxaana wararku inta sheegayeen in kooxda al-shabaab ay iskaga bixeen deegaanadaasi kadib markii ay ka war heleen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo wajahayeen halkaasi waxaana imika la soo warinayay in deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 26aad ee Cali bin Abi Talib dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay in laga xoreeyo ururka al-shabaab oo muddooyin fara badan oo halkaasi gacanta ku hayay ayagoona dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgalla ka dhan ah kooxda al-shabaab ay ka wadeen halkaasi waxaana dadka ay soo warinayaan in ay arkayaan kooxaha al-shabaab oo iskaga baxaya deegaanadaasi saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka howlgalkan ay u sameeyeen ay tahay in ay ka hortagaan dhagaraha iyo sidoo kale qaraxyada ururka al-shabaab ay ku aasaan wadooyinka markaasi adeegsadeen inta badan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan deegaanadaasi howlgalkan ayaa qayb ka ah dagaalka wajiga labaad oo iminka si dardar la kaga socda gobolada Shabeellada Dhexe Mudug iyo waliba Galgaduud iyadoo markaasi tuulooyin fara badan oo kooxda al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaanadaasi laga xoreeyay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasina ay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay ballan qaadeen in la shaqeynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed